salaamullaahi calaykum kulanti wanaagsan akhyaaray meel kasta iyo weliba si kastoo idiin soo gaaraya muuqaal aragga Somsad kusoo dhawaada warka TV-ga qodobadaad ku daawanaysaana haddii uu rabbi raalli ka noqdo waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Mareykanka ayaa waxa uu kulan la qaatay jariyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyadoo dhanka kalena dibadbax looga soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliya ay qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi ay ka sameeyeen halkaasi madaxweynaha ku-xigeenka Somaliland waxa uu maanta gaaray magaalada Hargeysa kadib safar shaqo in muddo ugu maqnaan qaar ka mid ah dalalka Carabta isagoo faahfaahin ka bixiyay kulamo la soo qaatay booqashadii uu ku tagay qaar ka mid ah dalalkaasi Allahu naxariiste waxa maanta asqaran oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda Soomaaliya loogu sameeyay magaalada Muqdisho xildhibaan Xuseen Cabdisalaam oo marinimadii shalay ay kooxaha hubaysan dil ugu geysteen degmada Wadajir ee gobolka Banaadir wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xukuumadda Soomaaliya ayaa iyana faahfaahin ka bixisay fatahaad webiga Shabeelle ka sameeyay deegaanada dhaca gobolka Shabeellada Dhexe iyagoo ugu baaqay hay'adaha samafalka iyo sidoo kale ganacsatada inay taakula la gaaraan dadkaasi uu saameynta ku yeeshay fatahaadda webiga Shabeelle shirweyne la magac baxay midnimo oo ay isugu timi mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa maanta waxa uu si rasmi ah uga furmay degmada Sarmaanyo ee gobolka Sool wasaaradda duulista hawada Somaliland ayaa iyana faahfaahin ka bixisay shirkadda African Express Airways oo duulimaadadeedii ka bilowday magaalada Hargeysa dhanka akhbaraadka dibaddana xukuumadda Kenya ayaa guura ka sheegatay iska horimaadkii ama dagaalkii ay la gashay kooxda haysata xarunta ganacsiga Westgate iyadoo dhimashaduna ay sii korortay intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ku daawan doontaan warka TV-ga Somsad iyagoo faahfaahsan iyo kuwa kaleba idinku soo socdaan ka hor qadaradega bulshada